hooyo gaasiro xuseen oo ka mid ah ururka haweenka ee mustaqbal oo maanta waraysi gaara siinaysay shabakada caalamiga Shinida News ayaa waxay kaga sheekaysay baahiyaha ku gadaman iyo xariga odayaasha iyadoo ku nuuxnuuxsatay in xariga odayaashaasi aan waxba u dhimin isla markaasina waxay hooyo gaasiro ku nuuxnuuxsatay xaaladda guud ee deegaamadaasi sidoo kale shirkii jaraa'id waxay kaga warantay arrimaha shax guray ee ku qatamay magaalada Xariirad iyadoo shirkidan jaraa'id ku falanqaysay guud ahaanba xariga odayaashaasi iyo arrimo kale hooyo gaasiro oo arrimahaasi iyo arrimo kale shabakada caalamiga uga waramaysa waxay tidhi in maartaan buriyaan leey in awoon leey in tabaanaysan leey waxaan idin sheegayaa dadkaas oo dhan falba waxa uu soo qaray kartaanba ilaahay haydin kaalmeeyo soo kaalmeeyo waxa kale oo idin sheegayaa Soomaaliya inay ka dheertahay cadaaladda inay ka dheertahay xuquuqda islaamka inay ka dheertahay aan ilaahay sida duwaayinka muslimiinta ama sayjaalada Allah ka yeelay إن الحقوق الإسلام كأقول ويهين ضد مارتاني يعني شعب في الكون المسلم العالي الدولة وضعها هي إن الشعر يجشنا كذا إن أي أداد منه والكام بأداد يعبر الهاي وحى عن كشيء هلكن وضيسنا عشان بالحياة وضحي حفيسنا كم مرور هاي إن يسطح بلاد ويركب inay dadkii labadii bilood iska burburtay beel la caburinaya beel la ay qaadeen way antoobeen odayadii qaashi waxaan leeyahay odayadii ay antoobeen ay ugu geeyeen u haysta sida doonto hayeen marka xukuumadda Soomaaliya وحكروا لي شريعة إن أنا حرب كان قوي كيجي الحرام قلنا أنت في كهد كريم قلنا وربحين بحين كريم قلنا دولة يدل بدنا وعون بسنها إن أبوريا هطلنا بيش حيسا وحن لنا هاي نجسي داية المحن هاي الزيادة إن نعبو صنع هاي إن العدادين قبله إن نفك يا دمر على وح إنه لابد يكون مسؤول يلا شيء على وح الدكتور كان يقول هذا كنت كلام الوقت أنا بروح نجقى القول يا وحن ضانا إنه ولا خير هنا وين حنوقف في السنة دولتي جات كتاوي نجا أمسي إثيوبيا نجا أمسي جيبوتي نجا أمسي محنا هذا يحد الله إنه سوبر من سعيد إنه حتى يسمى لنا جبتو تدخل كفو أبو سنو كو أداك سنو كو إيه لمبان حتى نجا نيجو أهدا سيرك عبد محمد عبد الله ورك الشنينة نيوز سايلع.